kulanti wacan khiyaaray kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay muuqaalkeena waxaanu ka eegi doonaa waxyaabaha ay wargeysyada caalamka ay ka qoreen saaxadda kubadda cagta muuqaalkeena intina bilaabin saaxiibayaal like saara sina share garaysa asxaab badan oo gaadho haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkana furo saad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdaada mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal haddaynu ku bilowno xaaladda Vinicius Junior oo maalmihii ugu dambeeyay aad u cunsuriyad loo geystay dhankaasi oo baraha bulshada oo laacibkan laga weeraray imika waxay wargeysyadu ay qorayaan in laacibkan uu dareemayo walwal oo xaaladiisa ay xumaatay iyo niyad jabna uu dareemayo xaaladiisa waxay gaadhay heer oo Tobrice Ancelotti uu ka dalbado in kulanka axadda ay la leeyihiin kooxdaasi Atletico Madrid derby Madrid uu ka dalbaday in la fariisiyo Ancelotti ay waxa wajahayaa koox kulankani ay maalinka bariya wada leeyihiin kooxdaasi Atletico Madrid in xaalad adag isagoo hore uga maqnaa Benzema haddana Vinicius Junior uu ka dalbadayba in la fariisiyo laacibkan kulankaasi ay leeyihiin Atletico Madrid kadib markii cunsuriyad loo geystay baraha bulshada oo laacibkan lagu weeraray inkastoo jireen xidigo laacibkan u fiirsan Neymar Thiago Alcantara Rafinha Richarlison xidigo badan oo helay way jireen laakiin laacibkani ay waxa uu ka dareemayay walwal xaaladiisna waa xumaato kulankaasna waxa uu rabaaba in la fariisiyo haddii Ancelotti uu dalabkaasi uu ka aqbalo Vinicius waxa qasab ku noqon doonta inuu adeegsado Hazard oo kulankaasi uu ku soo bilaabo in Real Madridna waxa ay wargeys ay soo saartay xalay ay ku sheegtay in laacibkani cid kasta oo falxun kula kacday ay sharciga la tiigsan doonto oo ay in abaalkooda marin doonto cid kasta oo laacibkani gaafliga disay baraha bulshada oo falkaasi cunsurnimada kula kacday laacibkani xaaladiisa waa xumaatay runtii warwar buu dareemayaa kadib markii fal cunsurnimo lagula kacay Vinicius waxaana loo doortay goor loo doortay kooxdaasi Real Madrid xidigii ugu fiicnaa bishaasi August inkastoo gool xiriir soo dhalnay oo kulamadii ugu dambeeyay 5 kulan oo xiriir oo gool soo dhaliyay Atletico Madrid waxay la ciyaartay ciyaar maskaxeedo wataasi kulankii horeba carqalad bay ku abuurtay falkaasina Coke ayaa bilaabay runtii aadna baraha bulshada waa loogu cunsuriyeeyo halka ninkani ma fiicna waana xidigii ugu fiicnaa bisha August kooxdaasi Real Madrid Diego Dalot ayaa fariin culus u diray ciyaartoydiisa Manchester United waxaana uu sheegay laacibkani inay haystaan fursad aad u weyn oo ay ku noqon karayaan haliyeeyo kooxaasi Manchester United oo lagu soo xasuusan karo mustaqbalka waxaana ciyaartoygan uu sheegay in haddii ay dadaalaan oo kooxda ay soo noolayaan ay noqon doonaan xidigii lagu tilmaami doono xidigii soo nooleeyay Manchester United fariintaasi ayuu soo maray xidigiisa waxa uu leeyahay dadaala si la noo soo xasuusto mustaqbalka oo loo yiraahdo waa kuwa xidigii Manchester United soo nooleeyay Lionel Messi 39 kooxood ayaa ku fashilmay in horyaalka championka ay shabagooda ka ilaashtaan 39 kooxood oo kala nooc ah ayuu gool ka dhaliyay runtii waxaa jira kooxo waaweyn oo iyagu shabagooda ka ilaashtayo waanu haba yaraatay Messi aanu championka aanu wax gool ka dhalin kooxaasi waa kuwee waxa kamid ah kooxdaasi ka tirsan horyaalka Spain Atletico Madrid waxa gool ka dhalin Lionel Messi sidoo kale kooxda weyn ee kale Inter Milan kooxdaasi weyn Messi isaguna sidoo kale waxba kama dhalin marar badan waa ku horimaatay laakiin waxa gool ka dhalin kooxdaasi sidoo kale Benfica kooxdaasi iyadana kama dhalin kooxo waaweyn baa jira oo inta badan horyaalka badan ka soo qayb gala oo haddana Lionel Messi aanu ka dhalin haddana sigastay aataba 39 kooxood ayaa ku guul dareystay in laacibkani ay shabagooda ka ilaastaan oo kaasiyo kooxaasina wax gool kama dhalin waana goor Luis Campos iyo waliba Nasser Al-Khelaïfi waxay awoodooda ay saareen sidii ay heshiiska ugu kordhin lahayn Lionel Messi oo heshiiska ugu kordhin lahaa uu saxiixila haddana saxaafadda Faransiiska ay waxay isku raaceen in Messi haba yaraatay aanu mustaqbalkiisa aanu ka hadli doonin ilaa ay koobka adduunka oo dhinaca u dhaco horna warkaas soo bixin sheegaya Messi mustaqbalkiisa aanu ka hadli doonin koobka adduunka ilaa intuu dhamaanay ka hor wax wada hadal kama galiyo wari
mustaqbalkayga. Waxaana jirta Camp Nou ayaa looga gacan haadinaya oo saaxiibkii Xavi iyo waliba madaxweynuhuba ay halkaasi ay u gacan haadinayaan. waana macquul in kooxdiisaasi dib ugu laaban karo. Barca waxay qabtaa fikir ah in Messi ay imika awoodo dhaqaale ahaan oo si sanadka hore aan hayno, waxay leedahay waa goortii aan soo ceshan lahayn goodkayga. sidoo kale Ramos ayadana waxay doonaysaa iyaduna inay heshiis waqti dheer ay ka seexdo. Messi Ramos bay rabtayo. Ramosna bandhiga maalmihii ugu dambeeyay uu ka sameynayo kooxda PSG aad ayuu la dhacaysiin Luis Campos iyo waliba Nasser Al-Khelaifi. Fati xidiga yar ee kooxdaasi Barcelona ee dayrkii runtii waxa weeye xidigii ugu da'da yaraa ee taariikhda championka goolka dhaliya. waxaanu ka dhali Inter 2019 xilli ciyaareedkii 2019 ayuu Inter ka dhaliyo. waxaanu ka dhali isagoo jira da'da 17 jir iyo waliba 40 maalmood 17 sano iyo 40 maalmood isagoo jira ayuu ka dhaliyay. sanadkani waxay isaguna kaalinta labaad isugu soo cirsaday xidiga da'da yar ee kooxdaasi Club Brugge Antonio Nusa isaguna waxa noqday xidiga labaad ee horyaalka championka isagoo da'diisu ay yar tahay ka dhaliya gool. waxaana ay Porto ay had kulankii dhaweeday afarkii eberka ay ka badinayeen ay gool ka dhaliyay. waxaana uu dhaliyay goolkiisa championka isagoo da'diisu ay tahay 17 sano jir iyo waliba 149 maalmood isagoo jira. runtii waa ku soo dhow yahay Fati, laakiin dhanka maalmaha ayuu ka wan yahay. isaguna waxa weeye xidiga labaad da'diisu isagoo oo yar tahay horyaalka championka goolka dhaliya. Sadio Mane ayaa warar ka soo baxay waxay sheegayaan in aanu ku faraxsanayn qaabka ay Bayern u adeegsanayso laacibkani. wargeyso badan waxay sheegayaan qaabka ay u adeegsato kooxaasi Bayern Sadio Mane in aanu ku faraxsanayn. inta badan Tobri's hore kooxaasi Liverpool Jurgen Klopp laacibkani waxa uu adeegsan jiray baashaasi weerarka garabka weerarka ayuu adeegsan jiro. runtii garabka weerarku aad ugu fiican yahay laacibkan dhanka xamaalashada, kubad qaadashada, jiidashada runtii aad buu ugu fiican yahay baashada uu soo bixi jiray. laakiin imka Bayern waxa adeegsataa weerarka dhexe lambar 9ka adeegsata laacibkan iyo waxa leeyahay Sadio Mane kuma faraxsanay uu adeegsanayso kooxaasi Bayern. waxa uu rabaa Sadio in garab loo adeegsado oo garabka sidoo markii horeba uu bartayba oo garabka uu ka soo weerartamo. laakiin maxay kaaga taala Bayern waxa adeegsataa positionka weerarka dhexe. Manchester United iyadu waxa leeyahay waxay suuqa January ay gelinaysaa suuqa lacag waaliyo. waxay doonaysaa xidiga khadka dhexe Tielemans ee kooxdaasi Leicester City oo heshiiskiisu ka dhamaanayo sanadka dambe oo ka dhamaanayo oo Arsenal laacibkan aad loo xiriiriyay. waxay doonaysaa in Arsenal ay ka dulqaato laacibkani ay bisha January ba ay ka soo qaato kooxaasi Leicester City. Arsenal waa la xiriiriyay laakiin waxa la United baa ku soo biirtay oo way ka tafi kartaa. Tielemans ay doonaysaa Janayo inay qaadato. dhawaan waxa soo baxay warar sheegaya in Ten Hag uu maamulkiisa uu ka dalbaday in lacag gacanta loo geliyo wali uu dareemayo in 3 position ay ka banaan yihiin kooxdiisa. Real iyaduna waxay doonaysaa xagaaga dambe inay kor qaato kooxaasi Tottenham oo xiiseynaysa iyaduna saxa daafaca dhexe kooxaasi Inter Milan Milan Skriniar. waxa la Real Bayern ku soo biirtay xidigaas iyaduna il gaar ah ay ku haysaa. runtii suuq xagaaga soo socda waa shidnaan doonaa sidii kii dhaweydo. Real waxay doonaysaa in Inter inay ka dulqaato Tottenham xidigaasi daafaca dhexe Milan Skriniar. Liverpool iyo Manchester United war kala cusub waxa la sheegan suuqa Janayo ay ku dagaalami doonaan iyaguna saxiixa xidiga khadka dhexe horyaalkaasi Brazil ka ciyaar ee kooxaasi Flamengo magaciisu yahay Joao Gomes. xidigaasi khadka dhexe oo ay labada kooxood bay doonayaan inay ku dalbadaan 30 milyan lacag kor u dhaafaysa. ay doonayaan ku dalbadaan ay waxay leeyihiin labadaasi xidigaasi ay labadaasi kooxood ay ku dagaalami doonaan xilli ciyaar bilaha soo socda ee January oo suuqa furmi doono ay ku dagaalami doonaan xidiga khadka dhexe Flamengo Joao Gomes oo 30 milyan ka badan lagu rabo. sanadkii dhow runtii aad ay suuqa ugu dagaalameen Liverpool iyo Man United inkastoo ay ku loolameen xidigaasi hadda ka tirsan kooxaas Liverpool
Darwin Nunes oo runtii ay Man United dhankeeda ka xiiseynaysi laakiin waxa ku gacan sareysay kooxdaasi Liverpool oo lacag ku dhawaad 100 milyan ah kula soo wareegtay. wararkeena ciyaar wanaagsan saaxiibayaal, intaaynu kulmi doono wararkeena kale. Wassalaamu calaykum.